magaalada Saylac ee xarunta gobolka Salel ayaa waxaa ka dhacday isu soo bax ballaaran oo lagu taageerayo maalinta toddobaad ee xisbiga xaakimka kulmiye ee kaltanka ololaha doorashada jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana kala qayb galay wasiir ku-xigeenka wasaaradda awqaafta arrimaha islaamka gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Salel xildhibaano kamid ah kuwa degmada Saylac iyo wax garad kale oo aad u tiro badan waxaana halkaas dadweynaha kala hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda awqaafta xildhibaan Mustafa Xasan Cabdullaahi iyo gudoomiyaha gobolka Salel Mudan Axmed Yaasiin Maxamed Barkhadle la diyaar garoobaysan digaad biisha iskaga dhigaysaan wadani waa sii sabooteeyna kulmiyana waa soo dhaweynayna rajada inoo muuqataa taasa sidaasaan ku wadaynaa waxa weeye dadaal wanaagsan inta aad halkana waa nin mahad celinaynaa waana ku mahadsantihiin dadaalkana waa wadaleenahay ibaydu leeyahay hawado kulmiye soomaalina la noolaato waa maalintii inoogu dambaysa ololaha waxa weeyaan 7 maalimood ayaan cadceedaa taagnay waxa loo baahan yahay 7 cisho waxaynu taagnayn waxaynoo haray maad garanaysaan wanyoon baa inoo hadhay waa maalinta foodka maalinta ballanteenu waa maxay عشان هاي سنة جمعها إلا جمعها يصلي حضنا هاي سنة اثنين عد كنا عقين فوقنا كل يومها على اللي بحي هاي اللي كسرين وسيدي أرسلوا كارتيسي عد بحنتها اللي بحي هاي اللي أرسلوا كيف نوتي وقالوا خالد أنا فكرنا حسينا كل يومها الله ديار قربوا waxaan ku soo dhaweynaa wasiir ku-xigeenka diinta waqaafta wasiir ku soo dhawow waxaa sidan oo kale saaka looga soo banaan baxay tuulada Toqoshi oo kamid ah degmada Saylac taas oo lagu muujinayay taageerada ay dadweynaha degan tuuladaasi u hayaan xisbiga kulmiye Maxamed Cawaala Daahir on Cable TV Saylac